Assalaamu calaykum. Intaan ibraahim fadlan muuqaalkan like saar janalka subscribe noo saar waxaa laga yaabaa agtaada inay ka fududahay laakiin annaga wax weynay noo tahay maanta waxaan rabaa inaan idinla wadaago filim soo baxay 2016 oo lagu magacaabo Hacker. Filimku wuxuu ku bilowdaa wiil lagu magacaabo Alexis Danaliak oo ah markaasi wiil yar oo u dhashay dalka Ukraine kaasi oo asi iyo waalidkiisii u soo haajireen dalka Canada si ay u helaan nolol ka fiican tii ay ku noolaayeen waxayna degeen London ee gobolka Ontario. Hooyadiisa waxay ka shaqo bilowday bank kaas oo damiin ka ah markaasi guriga ay ku nool yihiin maadaama dadkan ay yihiin qaxooti soo qaxay ama immigrants waxay degeen gurigaasna waxaa damiin ka ah bankiga ee hooyada ka shaqayso. Alex ma uusan lahayn saaxiibo uu la baashaalo oo uu la sheekaysto maadaama uu dalkani ku cusub yahay taas oo u suuragelisay in uu kombiyuutarka la saaxiibo oo uu jeclaado sida wax loo koodgareeyo. Markii uu Alex xoogaa koray wuxuu si online uga shaqo bilaabay website lacag kugu siinayo in aad wax keli garayso. Lacagta uu ka shaqaysta website-kan wuxuu u kaydsadaa si uu isaga bixiyo dhiga jaamacadda ama college. Habeenada ka mid ah ayaa wuxuu maqlay iyadoo labadiisa waalid ay buuqayaan buuqaasi oo ku saabsan dhaqaale xumada soo food saartay qoyskan. Alex ayaa si tartiib dibadda u aaday si uu uga fogaado buuqa labadiisa waalid sidoo kale uu madaxa u soo dejisto. Alex oo sugayay dalabka kofigiisa ayaa wuxuu TV-ga ka arkay warar ku saabsan in shirkado ay jabsadeen kooxo hackers ah oo lagu magacaabo dark web kaasi oo hogaamiyo in lagu magacaabo Zed. Subaxii marka uu ku soo laabtay guriga ayaa wuxuu arkay hooyadiis oo oonaysa maadaama laga soo ceyriyay bangiga ay ka shaqayn jirtay taasi oo ka dhigan in gurigoodii uu bangiga la wareegi doono maadaama uu damin ka ahaa guriga ay degan yihiin. Laakiin Alex ayaa wuxuu hooyadiisii siinayaa lacagtii uu kaydsan jiray ilaa yaraantiisii si aysan gurigooda loola wareegin. Alex oo ku fikiraya si uu lacag badan u sameyn lahaa ayaa wuxuu soo xasuustay kooxdii lagu magacaabay dark web kadibna wuxuu booqday website-kooda asiga oo iska dhigaya qof iska caadi ah. Markaas ayaa wuxuu ogaanayaa website-ka inuu leeyahay qaybo kala duwan si qaybahaasi aad u gaartana aad u baahan tahay qof kooxdaasi ku jiro in uu ugu casuumo ama wax sharci baalmarsan in aad samaysto taasi oo ah in aad wax hacking ku samayso. Alex maadaama uusan qofna ka aqoon website-kaasi ee dark web wuxuu ku qasbanaaday inuu hacking ku sameeyo credit card mid ay isku fasal ahaayeen oo dhibi jiray. Kadib Alex waxaa lagu casuumay qaybaha sare ee website kaasi oo laga rabo in aad iibiso waxyaalo la soo dhacay sida kombiyuutar, saacado qaali ah, dahab ama credit cards oo lacag fara badan ku jiraan oo dad kale ay leeyihiin. Isbuuc gudahoodii Alex wuxuu ku sameeyay lacag gaaraysa 30,000 oo u dhiganta lacagta uu jaamacadda isaga bixin lahaa. Alex wuxuu macsalaameeyay waalidiintiisii wuxuuna u soo guuray Toronto si uu halkaasi jaamacad uga bilaabo maadaama iskuulkii sare uu dhameeyay. Maadaama uu heerarkii ugu sareeyay kaga jiro kooxda dark web wuxuu awood u helay inuu isticmaalo aqoonsiyo fake ah si uu online wax uga iibsado alaabo qaali ah asiga oo isticmaalaya credit card la soo dhacay ama hacking lagu sameeyay kadibna alaabahaas uu ugu iibiyo qiimo jaban. Alex wuxuu isku dayayaa in uu alaabahaasi iibiyo laakiin cid aaminaysa ma helin. Kadib dhowr dukaan markuu ku soo wareegay oo uu waayay cid iibsata ayuu wuxuu arkayaa nin gadaashiisa daba socda oo lagu magacaabo Sai wuxuu Alex ka raadicinayaa inuu alaabahaasi si fudud ugu iibin karo. Kadib Alex wuxuu ogolaanayaa Sai in uu alaabahaasi iibiyo. Alex wuxuu aad ula cajabayaa sida fudud ee Sai alaabahaasi u iibiyay kadibna saaxiibo ayay noqonayaan Alex iyo Sai waxaana iibinayaan alaabo badan taas oo u suuragelinaysa in muddo 4 bilood ah ay ku sameeyaan lacag gaaraysa $60,000. Alex ayaa wuxuu daawanayaa muuqaal ay baahiyeen kooxdii dark web ahayd ayaga oo ku hanjabaya in ay jabsan doonaan bangiyo badan. Alex wuxuu ogaanayaa in jaamacadda aysan noloshiisi waxba aysan kusoo kordhinaynin wuxuuna go'aansanayaa inuu isaga tago jaamacadda. Kadib Alex iyo saaxiibkiisii Sai waxay go'aansanayaan in ay helaan xogo bangiyeed si ay u jabsadaan. Alex aad ayuu u neceb yahay bangiyada maadaama ay hooyadiisii shaqada ka soo ceyriyeen. Sai wuxuu ku guuleysanayaa inuu xogo helo. Maalin ayay waxay aadayaan ama ay booqanayaan club halkaasi oo ay ku kulmeen gabar ay Sai saaxiibo ahaayeen oo lagu magacaabo Robin waxay Alex u dhiibaysaa credit card oo unlimited oo qof ayaga qashqashaaday meesha ku iloobay. Robin waxay Alex u dhiibaysaa credit card oo lacag badan ay ku jirto. Alex wuxuu kala labeenayaa ay isticmaalaan credit cardkaasi laakiin ugu dambeyn lacag u fara badan ay kala soo bixin ATM-ka. Kadib Sai ayaa u sheegaya in aysan mar kale isticmaalin credit. Muddo kadib Alex wuxuu ogaanayaa bangiga soo ceyriyay hooyadiisii inuu ka mid yahay bangiyada aadka ugu nugul
in la jabsan karo. Alex ayaa sii diyaarinaya asiga oo iska dhigaya qof u dhashay waddanka British ama Brit oo raba inuu akoon ka furto bangiga. Kadib wuxuu flash u watay si tartiib u gelinaya mid ka mid ah kombiyuutarka bangiga kaas oo bangiga ku faafinaya virus. Alex ayaa isku dayaya inuu si tartiib u baxsado laakiin waa la fahmay waana la soo qabanaya. Laakiin Alex ayaa wuxuu ka dhaadhicinayaa madaxa bangiga in ay qaataan viruska oo magacoodii ay ku qortaan sidaa darteed ay sii daayaan. Shaqada Alex ayaa waxaa la cajabaya kooxdii Dark Web. Zaad oo ah madaxa kooxdani ayaa lag fariin ah u soo diraya Mr. Alex. Muddo kadib Alex waxaa la soo xiriiraya oo ay isbarteen gabar lagu magacaabo Kira taas oo iyadana ah. Haddaad weli nala joogtid waxay cadeynaysaa in aad ka heshay muuqaalkan fadlan janaalkan subscribe noo saar sidoo kale muuqaalkan like saar siina share garay. Gabar aad ugu fiican xakinka isbarasho kadib Kira waxay kusoo biiraysaa kooxda ayadoo la wadaagaysa xogo badan sidoo kale waxay baraysaa Bitcoin. Saddexdoodii waxay sameynayaan lacag aad u fara badan. Kira waxay si dhaqsi u iibinaysaa alaabo badan ayadoo gruubka u sheegaysa in adeerkeedii ay caawinaad ka heshay. Alex aad ayuu uga helay shaqada Kira laakiin Sai ma jeclaysan arrintani maadaama uu ahaa qofka kaliya wax sida u iibin kara. Habeenada ka mid ah Kira waxay Alex ka dhaadhicinaysaa in ay u guuraan Hong Kong sababtoo waxay leedahay ka fursad badan tahay meesha ay joogaan. Alex wuxuu kala labeynayaa markii hore laakiin Sai kuma faraxsana in Hong Kong loo guuro. Buuq iyo dagaal kadib waxay isku raaceen in ay u guuraan Hong Kong. Maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxay isku dayeen in ay isticmaalaan credit card ay jabsadeen laakiin qofkii lahaa mar hore ayuu bangiga u ogeysiiyey in uu ka lumay credit cardkiisii. Markii qofkii ay wax ka iibsanayeen uu rabay in uu ku xoqo kaarka wuxuu arkayaa fariin sheegaysa in kaarka uu yahay mid loo diiwaangeliyey in uu lumay. Alex iyo Kira waxay ku khasbanaadeen in ay naftoodii meesha kala cararaan. Alex wuxuu Kira iyo Sai u sheegayaa in uu ku caajisay waxyaalahan yaryar wuxuuna rabaa inuu wax weyn sameeyo kaas oo soo jiidan kara ninka ugu weyn ee shirkadda Dark Web Z. Laakiin Sai wuxuu furayaa mowduuc ka duwan mowduucoodii wuxuuna ka dhaadhicinayaa in ay caawa tahay dhalashadiisii ayna u dabaaldegayaan. Habeenkii waxay aadeen club si ay ugu dabaaldegaan dhalashada Mr. Sai laakiin Sai ayaa wuxuu galayaa dagaal kadib Sai iyo Alex sida ay xabsi u galayaan. Laakiin si wanaag Kira ayaa waxay ku guuleysanaysaa in la soo daayo labadoodii ayadoo leh adeerkayga ayaa igu caawiyay arrintan. Subaxdii Sai wuxuu keenayaa bac lacag ku jirta oo aad u fara badan si uu ugu raali geliyo Alex rabshadii xaalay Sai sababay ee clubka. Laakiin Alex ayaa isla markii ogaanaya credit cardka uu Sai isticmaalay inuu yahay mid uu mar hore ballan qaaday Sai inuusan dib dambe u isticmaali doonin. Waa credit cardkii gabadhii clubka ka shaqayn jirtay. Alex aad ayuu u caroonayaa taas oo sababtay inuu Sai go'aansaday inuu Toronto isaga laabto. Intaa kadib Alex iyo Kira waxay qorsheynayaan inay dhacaan lacagaha ku jira ATM-yada dhammaan Hong Kong taas oo lagu qiyaasay $2.3 milyan taas oo soo jiidatay madax sare ee Dark Web ee Mr. Zaad. Alex iyo Kira oo sheekaysanaya ayaa waxaa la soo hadlaya Mr. Zaad. Alex wuxuu Mr. Zaad ka dhaadhicinayaa in ay kulmaan kadib waxay kulmayaan. Mr. Zaad wuxuu u sheegayaa in uu ka caawin doono waxay rabaan laakiin hadday ku guuldareystaan mishinkoodii inay dhiman doonaan. Kadib kulankooda Alex waxaa soo wacaya Mr. Sai oo sheegaya inuu soo laabtay uuna ka xun yahay isfaham waaga uu soo dhexgalay. Laakiin inta aysan soo gaarin guriga Sai waxaa dilaya ninkii iska lahaa kaarkii ay isticmaaleen ee Sai laga celinayay. Alex iyo Kira waxay ka soo tageen meeshii ay deganayeen laakiin Zaad ayaa qorsheynaya inuu jabsado bangiyada waaweyn ayaga oo khalqalgelinaya shirkadaha waaweyn oo uga dhigaya in uu dhaqaalaha dowladda uu crash ku dhacayo ayaga oo isaga dhigaya in wasiirka maaliyadda la dilay. Kadib mishinkan Alex iyo Kira waxay go'aansadeen in ay isaga tagaan meesha laakiin waxaa soo weeraraya qolyo wajiga u duuban. Alex si xun ayaa loo jirdilayaa kadibna meesha ayaa looga tagay. Kadib wuxuu aaday meel isaga iyo Kira ku balameen haddii ay wax dhacaan in ay ku kulmaan. Si kastaba ha ahaatee Kira meesha ma imaanayso. Alex wuxuu tagayaa meelaha internetka lagu kireeyo wuxuuna ogaanayaa in Zaad la xiray kooxdii Dark Webna la burburiyey Kirana la tog. Laakiin Alex way u cuntami weysay
sheekadan wuxuuna rabaa inuu si fiican u baaro arrintan, laakiin internetka ayaa laga jarayaa kadib waa la xiray. Muddo 2 sano kadib Alex xabsiga ayaa laga sii deynayaa. Albaabka xabsiga banaankiisa ayaa wuxuu ku arkayaa Kira oo taagan. Kira waxay u sharxaysaa Alex in ay la shaqeyso FBI-da si loo soo qabto madaxa sare kooxda Dark Web, sidaa darteedna ay Sai iyo Alex uga dhaadhicisay inay usoo guuraan Hong Kong. Filimka halkaas ku ekyahay. Fadlan haddaa ka heshay filimkani like saar sa u heshid muuqaaladan la mid ah.